afrikaay maxaa dhacay horumartay adduunyada yurub iyo ameerika arrimahooda xalliyeen aagooda quruxsheen aaran bay dabaasheen arrinkooda maad garan intay idin ambiyeen anguugyo idin dhex dhigeen dadnimadiina aaseen asiiligiina duugeen afrikaay istaago asiiligiina duugeen afrikaay istaago arrimihiin hagaajiya ma ay garadaad ahayn awal miyaad tayeesneen ma ay garadaad ahayn awal miyaad tayeesneen afrikaay istaago arrimihiin hagaajiya ma ay garadaad ahayn awal miyaad tayeesneen sidaan waxaan ugu talagalay dadka afrikaanka ah waxaa soo dhacay warar sheegaya in dalka la yiraahdo Faransiiska uu u gafay dadka madow ee afrikaanka ah ummadda degta Afrika waxa ay doonaan ha ahaadeen qoomiyadahooda tirada badan mar rab inaan sheego afrikaanka dadka wadaaga maxaa idinku dhacay maxaad uga jawaabi laadihiin muxuu ninka hogaanka idin ahi ninka arrimaha bulshada ka shaqeeyo ninka abwaanka ahi ninka wariyaha ahi maxaad ugu dhiidhin laadihiin wadadka la sheegayo oo xayawaanada ah waxa wax lagu baroobeeyaa dadka xayawaanada ah waxa wax lagu baroobeeyaa xayawaanada dooliga iyo ayaa lagu baroobeeyaa daawada balse ayaga waxay sheegeen Afrika ku baroobeen doonaan maxay tahay bahdiliyada noocaasi oo kala ah maxaad uga ogolaateen maxaad uga yeesheen maxaad uga hadlaadihiin miyaadan ogeyn in qofka laga hadlay lagu baroobeeyay uu yahay qof diirkaada leh macquul inuu adiga qofkaas noqdo suuragal afrikaan waxaa loo yiri afrikaanimadu inaan wadaago ogaada hore ayaa waxaa loo yiri ushii walaalka ku dhacdaa gumudkeed ayaa ku dambeeya Soomaali been kuma mahmahdee run ay kuma Soomaali been ma sheegtee Soomaali been waa sheegtaa balse kuma mahmahdo ayaa hore loo yiri ogow ushii walaalka ku dhacdaa gumudkeed ayaa ku dambeeya maanta ni Suudaani hadii lagu diro oo lagu baroobeeyo birnin Soomaaliya lagu baroobeena afrikaanimada waan wada wadaagnaa mana aha inaan arintaasi aan sheeg ka gabano waa inaan ka hadalnaa wax ay raari noo hayaan ayaa iska yar dhulkeena way waa maraa dhulkeena xoolaha waa lagu dhaqan karaa dhulkeena kalluun uu leeyahay maxay tahay baahida aan ugu baahanahay Yurub maxay tahay wallahi ayaga noo baahan maanta markaas ka aamusantiisa ka hadli laadiin maxay noo yihiin ma banaqaaneen afrikaan ka istaag meesha joogto maxay tahay sababta aan badda ugu la'aanayna maalin kasto dhalinyaradeena maxay tahay dhibaatada aan kala kulmayno war dhulkeena miyaa laga waayay dhulkeena dahabka buuxo ceegaago shidaalka sidoo kale dhulkeena beerta iyo xoolo dhaqashada iyo kalluunka bale maxay tahay sababta aan ugu ordayno nimcada waa loo ordaa ee lagama ordo maxay tahay in la'aantana haysato maxay tahay maareen la'aantana haysato every African you are freedom you are not slavery every African you are freedom you are not slavery African waxaa tahay African kasto waxaa tahay xur manatid qof la adoonsado adoon ah dhammaanteen intii muslimiin ah alla ayaan doomadiisa nahay ee bani aadan adoon banihi inoo la gafana waacee waxaas ka sii ceeb badan inaan ku fiirsano gafitaankaas waa inaan ka hadalno ka dhigdhinaa gacanta inaan ugu sinna maaha qofka afrikaanimadiisa ka tan waa doqon qofka dadnimadiisa ka tan waa doqon aabiisna xuma taro xaaskiisna xuma taro cunugiisna xuma taro gadan meeno sharafteena iyo waxyaabaha aan anaga ku nool ku tiirsanahay mujtamaca Afrika la isku dhaha dadkan Afrikaan qaarada Afrika dega qaarada madow ee kulul waa kan nimc badan naga nimc badna laakiin way naga maareen fiican yihiin aan maareynta badan waa ogahay in arrimaha aan ka hadal lagu talagalin laakiin Afrikaanimadeeda idigeega muujiya waxba uma baahnay in igu dhiirigelisaan oo hore si YouTube ay dhahdaan laakiin waxaan u baahanahay in aan ka hadalno dhibaatadan wada haysta dhamaanteen Afrika istaago arrimihiin hagaajiya ma ay garadaad ahayn awal miyaad tayeesnayn marka hore miyaad sharaf lahayn mise tayala aan baa idin haysa
ما أي جرد هين مسي أول مية تيسنين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قول